Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mar kale iyo maqal cusub. Badanaa waxaa jira applicationo ama markaasi waxyaabo telefonkaaga aad ku shubato oo qaarkood markaasi ay yihiin trackers ama wax loo yaqaano basaas ama oo dadka basaasa markaasi oo ay leeyihiin shirkado markaasi xogo ururiya ama waxyaabahaas kale kulli adiga dhibaato ku geysanayo xogtaada markaasi ururinaya. Inankana badankeenu applicationada waan iskaga shubanaa mobilada markaasi waan iska isticmaalnaa laakiin moogin waxaa jira siyaabo lagu ogaado in applicationada qaarkood ay yihiin qaar basaasiin ama xogtaada baadhanaya. Waxaana jira siyaabo looga hortago oo markaasi difaac uu leeyahay telefonku markaasi difaacaas uu ilaaliyo. Okay, halkan waxaa markaasi aan kusoo gudbin doonaa laba qaab oo markaasi aad iskaga ilaalin karto applicationada wax basaasa ama markaasi xogta ururiya. Waxa aan ku horeyn doonaa qaybta ugu horeysa mobilka Samsung aad sidato waxa uu leeyahay markaasi qayb antivirus ama markaasi secure device la yiraahdo oo checking mar walba kaaga sameyn kara in mobilkaaga wax qaldan ay soo galeen ama wax markaasi mobilka dhibaato u geynay soo galeen. Sidoo kale waxa markaasi uu leeyahay qayb kale oo Google ah oo markaasi ilaaliya spy applicationska ama kuwan wax basaasa. Saas darteed waxaan sameyn doonaa mobilkaaga Samsung ayaad soo gali doontaa qaybta setting-ka ayaad iman doontaa. Qaybta setting-ka marka aad timaado waxaad iman doontaa halka hoose markaasi ay ku qoran tahay device care halka ku qoran tahay ayaad iman doontaa device care halka ku qoran tahay ayaad iman kadibna halkan option fara badan ayuu kaaga soo saarayaa isla markaaba marka aad qaybtan soo gasho halkan waxa uu kaaga soo qoriyaa 100% waa excellent. haddii mobilka markaasi ay cilado ku jirto ama dhibaato ku jirto ama oo applicationo aan waxtar lahayn ay ku jiraan 100% kuma soo dhigay caafimaadkiisa. Saas darteed marka aad doonayso inaad qaybta markaasi amniga mobilka aad checking garayso halkan ay ku qoran tahay security ayaad ku dulufanaysaa. qaybta markaas aad ku dulufato halkan waxa markaasi uu ku siinayaa option-kan waad scan garaynaysaa mobilkaaga markaa applicationada ku jira dhamaantood scan ayuu marinayaa midkii markaasi dhibaato keenaya ama markaasi spy ah oo markaasi wax basaasaya si automatically ayuu soo qabanaya. Hadda scan haddii aan ku sameeyo halkan waxa uu scan garaynaya applicationada ku jira dhamaantood ayuu hal mar markaasi halkan saa u soo ururinaya odiga arkaya mid walba scan ayuu marinaya uu checking garaynaya markaasi ciladii ayuu ka tijaabinaya inay wax ku jiraan ama inuu wax sameynayo kaas ama inuu dhibaato sameynayo oo mobilkaaga uu khatar ku yahay ayuu markaasi checking garaynaya bal marka uu dhameystira in eegna 100% soo istaajiyo inuu soo saaro application cilad leh ama mid aan markaasi inuu aan waxba jirin oo markaasi 100% soo fatiyay mobilku waa kaas hadda 99% ayuu soo qoray oo optimized markaasi marka dhibaato ayaa jirta markaasi ay ka dhigan tahay haddii uu markaasi telefonkaaga ayna wax khatar ah ku jirin 100% excellent ayuu ku soo dhigi doonaa. hadda anigaas 99 buu soo dhigay marka dhibaato ayaa jirta bay ka dhigan tahay ama application cilad keenay bay jirta bay ka dhigan tahay markaas saas darteed halkan ayaad markaasi ka optimize garay kartaa markaasi oo ka ogaan kartaa in markaasi wax mobilka khatar ah ay kugu jiraan. waxa markaasi jira oo kale iyagana aad sameyn kartaa in aad markaasi u samaysato Google Play Protect waxa la yiraahdo oo markaasi intaad qaybtan Play Store-ka aad soo gasho qaybta marka aad soo gasho aad halkan timaado setting-ka qaybtan setting-ka ayaad iman doontaa halkan ay ku qoran tahay Play Protect halka ku qoran tahay ayaad iman doontaa haddayna qaabkan uu kugu soo bixina waxaad sameyn kartaa setting-ka intaad gasho ayaad qaybtan ka eegi doontaa halkan kaga soo saar doona Play Protect halka markaas aad tiraahdo Play Protect waad ku dhufanaysaa halkan waxaad ka scan garan kartaa application cilad keenaya ama markaasi mobilka khatar ku hayay jiraan haddii uusan Play Protect ku furnayn qaybtan setting-ka soo gal halkan ka fur markaa scan apps with Play Protect iyo improve harmful app detection-ka halkan ka furo labada markaad furto kadibna scan baad ku dhufanaysaa si uu kaaga check gareeyo mobilkaaga inay ku jiraan mobilo markaasi basaasiin ama xog ururin ah ama markaasi khatar ku ah mobilkaaga halkan ayuu markaasi kaaga soo saari doona xogabad yar sugi doonta markaasi inta uu ku checking garanayo ama scan-ka uu marinayo in wax khatar ah ay ku jiraan mobilkaaga ama dhibaato ku geysan kara ama waxyaabahaas oo dhan
hadda waxa uu soo qoray no harmful apps phone, markaasi wax dhibaato ku keenaya kuma jiraan mobilkaaga, waa nadiif ayuu halkan ku soo qoray. Waxaa kaloo markaasi aad ku ogaan kartaa play protect marka aad furato waxa uu kaa caawinayaa in marka aad timaado ama marka aad sameynayso inaad application installation ku sameyso. Imka tusaale ahaan waxaan tagayaa qaybtan storage-kayga ayaan tagayaa, application-yadan galayaa, halkan waxaa ku jira application baa halkan ku jira, application-kaasna soo qabanaya. Application-ka waxaa la yidhahdaa Yasin TV baa la yidhahdaa. Waxaa laga daawada markaasi channelada TV-ga ku jira oo kale, channelada television-ka ku jira ayaa laga daawada. Inta badan laga yaabaa imika in qof kasta oo mobile haysta uu telefonkiisa ku jiro Yasin TV, ciyaarahaas inta badan laga daawada. Install baan odhanaya, bal install marka aan ku dhufto waxaa markaas ii soo saaraya in uusan soo install garan karin. Okay, waxaa buuxa storage-kayga, wax yar sug aan baneeyo kadib baan ku tusi doonaa. Okay, hadda waan soo baneeyay, application-kan ayaan installation ku sameynayaa, Yasin TV. Install baan odhanayaa. Install markaan idhaahdo waxaa ii furan Google Play Protect, waa kan blocked by Play Protect. This app is fake, it tries to take over your device or steal your data. Application-kani waa been, waxa uu isku dayayaa in device-kaaga ama mobilkaaga uu ka xado daatada ku jirta, si automatically ayuu Play Protect kugu soo saaraya. Halkan hoosta waxaa ku soo dhigaya if you have heard of this app or the developer is dangerous, install an app from markaasi untrusted source. Waxa weeyaan xataa haddii markaasi developer-ka aad garanayso ama waxyaabahaas oo dhan aad ogtahay qofka sameeyay application-kan khatar ayuu ku yahay teleefankaaga. Halkan hoose waxaa ku soo qoran install anyway and safe, waa si kasta haataba iska install garayso, waa unsafe, waxa weyn markaasi waa amni darro, yacni teleefankaaga khatar ayuu ku yahay bay ka dhigantay. Yasin TV kolleyba aniguba waan haysan jiray, waan daawan jiray aflaamta iyo markaasi channelada iyo ciyaaraha intaba waan ka daawan jiray, laakiin markii uu dhibaatan soo kordhiyey gebi ahaanba waan iska saaray, ma daawado hadda igumana jiro. Wadiga arkaya Play Protect si automatically ayuu kugu soo qabanayaa application-ka dhibaatada kugu keenaya ama markaasi aan wanaagsaneyn. Haddii uu teleefankaaga ku jirana uu kaa disable garanaya, si automatically ayuu kaaga qabanaya application-ka spy-ga ama markaasi basaaska ah. Play Protect baad furan doontaa. Hadda okay baan iska odhanayaa, waa u diiday ma soo install garan karo maadaama aan okay idhi, saas buna kaga baxaya markaas. Meelaha aan ku soo sheegay oo dhan waxaa markaasi aad ka ogaan kartaa in teleefankaaga ay ku jiraan application-no ku khiyaamaya ama markaasi basaasiina. Sidaasna aad uga hortagi kartaa inaad scan ku sameyso mobilkaaga, in markaasi aad Play Protect furato. Siyaabo kale oo looga hortago ama markaasi looga ilaaliyo inuu jirin antivirus ku shubato ama waxyaabahaas oo dhan aad ku sameyn karto. Laakiin si ay markaasi dabiiciyan mobilku waxa uu leeyahay originalkaaga waa kuwaas, oo adigu application kale ku shubanin ama meel kale aadin ama wax kaleba sameynin, kuwaas umad furanaysaa teleefankaaga. Markaasi waad ka ogaanaysaa ama markaasi waad ka badbaadaysaa application-nada basaasiinta ama markaasi daatadaada kaa xadaya. saas ayaad ku ogaan kartaa. Waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iiday. Tan iyo muuqaalka dambe isku iman doono nabadey.